qaybta labaad ee buugga ku raaxayso noloshaada. macaanka salaada. laba saxaabi oo mid yahay muhaajir midka kalena ansaari ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu u xil saaray in ay ilaaliyaan nebiga iyo saxaabadiisa. kadib waxay ku ballameen marba mid in uu seexdo midka kalena uu soo jeedo. markaas midka muhaajirka ah oo jiifa ayaa saxaabigii kale salaad bilaabay. waxaa meesha agteeda yimid nin gaal ah. wuxuu arkay muslimiinta dhan oo jiifa. ninkaas oo keliya ka soo jeedo. wuxuu isdhahay fursad ayaad ku heshay. markaas kadib gamuun leeb ayuu soo baxsaday. leebkii koowaad ayuu ku dhuftay saxaabigii tukanayey. saxaabigii salaaddiisa ayuu sii watay. kadibna ninkii gaalka ahaa mid labaad ayuu ku dhuftay saxaabigii. haddana salaaddiisii ayuu sii watay. mid saddexaad ayuu haddana ku gamay. saxaabigii ayaa rukuucay oona sujuuday. ninkii gaalka ahaa wuxuu isdhahay ninkan xanuun ayuu dareemay wuuna dhimanayaa. markaas ayuu meesha ka sii orday. saxaabigii jiifay ayaa wax dareemay oo dhiig saxaabigii taagnaa ka daadanayay. saxaabigii jiifay markii uu arkay ninkan oo dhiig ka daadanayo ayaa wuxuu yidhi subxaana allaah, maxaad ii kicin weyday gamuunka koowaad marka uu kuugu dhacay? wuxuu ugu jawaabay mataqaanaa hadal ka awood badan buuraha. wuxuu yidhi salaad ayaan ku jiray oo suurad qur'aanka ka mid ah ayaan aqrinayay. waxaan diiday in ay ii kala go'do. yaa allaah, waa maxay dareenka uu dareemayey marka uu salaadda ku jiray oo ilowsiiyey xanuunka? wuxuu ku raaxaysanayey waa salaadda. miyaa laga helayaa adduunkan macaan iyo raaxo sidan oo kale ah? sidee ugu raaxaysataa salaadda? midka koowaad, u diyaargarow salaadda. ka hor inta aadan salaadda bilaabin xidho dhar qurux badan oo carafsan ka horna tuko sunnooyin. midka labaad, iska fogeey wax kasta oo ku mashquulin kara ama ku dhibi kara, sida ha tukanin adiga oo hortaada ay yaalaan wax ku hawliya oo leh sawiro. ha tukanin adiga oo maqlaya wax ku hawliya oo leh codad. ha tukanin adiga oo baahan ama lagu hor keenay cunto iyo cabitaan. ha tukanin salaadda adiga oo u baahan suuli ama musqusha. waxaas oo dhan ujeeddada ka dambaysa waa inuu qalbiga saafi noqdo. qofka tukanaya oo ku mashquulsanaado salaaddiisa iyo la kulanka alle. midka saddexaad, xasuuso weynida allaah ee aad hor istaagayso. xasuusno weynida allaah in aad la hor istaagayso boqorka abuuray dhulka iyo cirka, midka ay wax weliba gacmihiisa ku jiraan. alla naxariista badan alla maqlaya una jeeda oo kaa aqbalaya ducada. xasuusnow waxa allaah u diyaariyey mu'miniinta aakhirada, raali ahaansho iyo janna. midka afaraad, ku xasilidda salaadda. qofka aan ku xasilin salaaddiisa suurtagal uma ahan in uu khushuuco kuna raaxaysto salaaddiisa. sababtoo ah degdegsiinyada waxay la tagtaa khushuuca. waxaa lagu waayaa ajarka. nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku xasili jiray rukuucdiisa iyo sujuuddiisa. wuxuuna amray kii aan wanaajin salaadda inuu ku xasilo dhammaan falalka salaadda. wuxuu reebay degdega. midka shanaad, fahan micnaha aayadaha aad aqrinayso iyo ducooyinka kale ee salaadda. raaxada maskaxda. ma faraxsan tahay? waxa lagu siiyey nolol. laguma siin nolol fiican ama nolol xun. maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ogaatid in aad adiga 100% mas'uul ka tahay noloshaada iyo farxaddaada. miyaad faraxsan tahay? ma ku qanacsan tahay wax kasta oo aad haysato noloshaada? miyaanad rabin inaad haysato wax ka badan inta aad haysato?
jawaabtu waa haa waad rabtaa waxaan hubaa inay jiraan waxyaabo badan oo dhib kuugu haya ama aad rajaynayso inaad hesho balse su'aashu waxay tahay yaa ka mas'uul ah wax kasta oo kuugu dhacaya noloshaada jawaabta waa mid fudud adiga haa adiga ayaa ka dambeeya wax kasta oo ka dhacaya noloshaada maalinta ugu wanaagsan noloshaada waa maalinta aad ogaatid in aad adiga 100% mas'uul ka tahay noloshaada aad iska joojisid cudurdaar iyo cabasho ciladna u raadin wax kasta adiga keliya ayaa ka mas'uul ah inaad wanaaga ku raaxaysatid ama waddo qaldan raacdid kadibna murugootid haddii aad ka fikirto inaad tahay qof nolosha waxba qaban karin maskaxdaada waxay aamini doontaa arrintaas waxaadna isku qancin doontaa in aad waxba qaban karin wax kasta oo kuugu dhacaya noloshaada laakiin haddii aad u fikirto in aad ka mas'uul tahay wax kasta oo kuugu dhacaya noloshaada maskaxdaadu waxay bilaabi doontaa inay aqbasho in aad wax badan bedeli karto marka aan badanaa qof u sheego inuu ka mas'uul yahay dhammaan waxa ku dhacaya noloshiisa wuxuu ku jawaabaa maya ilaahay baa ii qoray waxa aan ku suganahay anigana waxaan ugu jawaabaa marka aad rabtid in aad heshid caruur maxaad samaysaa miyaadan raadin qof aad isguursataan maxaad u dhihi weysay ilaahay baa caruurta bixiya isaga ayaana ka sugayaa sababtoo ah waxaad og tahay in allah wax walba sabab u yeelay marka aad la imaadid asbaabta in aad helaysid caruur waxaa lagu siiyey doorasho in aad guursatid ama aadan guursan doorasho walbana waxa ka dhalanaya natiijad adiga ayaa dooran kara in aad ka dhigato noloshaada mid fiican ama mid xun haddii aad wanaagga badiso ajar shaqaysato waxaad ku noolaanaysaa nolol macaan badan ama in aad dembi iyo xumaan samayso maalin kasta oo nolol ciriiri ah ku noolaatid adiga ayaa dooran kara in aad subaxdii xilli hore hurdada ka kacdo oo u dhaqaaqdo rumaynta riyadaada iyo in aad iska sii hurdo oo riyooto nolosha ma jirto cid ama qof aad ku aydayn karto xaaladda aad ku jirto waa adiga qofka gacantaada ku kasbaday waa adiga qofka sameeyey doorasho qalad ah waa adiga qofka qaatay go'aan xun waa adiga qofka runta ka cararay waa adiga qofka mas'uuliyaddiisa aan gudan sidoo kale waa adiga qofka isbeddelka samayn kara haddaba jooji in aad ku eedayso dadka kale xaaladda aad ku sugan tahay aqbal mas'uuliyaddan ficiladaada qaado lahaanshada natiijada ka dhalatay qaladkaaga saacadu way socotaa wakhtiga wuu ordayaa wakhti sax ah oo kuu imaanaya ma jirto noloshu waa doorasho samey doorasho sax ah wax kasta oo noloshaada ah waa falcelis jawaab doorasho aad adiga samaysay isweydii su'aalahan ma ku faraxsan tahay noloshaada goorma ayay ahayd maalintii kuugu farxad badnayd noloshaada waa maxay waxyaabaha ku farxad geliya miyaad ku nooshahay nolosha aad jeclayd inaad ku noolaato haddii aadan ku noolayn waa maxay waxyaabaha kaa hor taagan waa maxay waxyaabaha aad samayn karto si aad ugu hor tegtid arrintaas qor dhammaan waxyaabaha aad rabtid in aad gaartid noloshaada marka aad ka jawaabto su'aalahan waxaa kuu soo bixi doona liis ah waxa dhab ahaan ku farxadgeliya iyo waxyaalaha aad doonayso inaad ka fogaato ee aanad rabin isticmaal labada liis ee kuu soo baxa si aad u samayso hadafyo kaa caawinaya in aad gaartid ku raaxaysiga nolosha waxaa tusaale u ah haddii aad ogaato in ay ku haysato dhib ah dhaqaale xumo iyo lacag la'aan sidoo kalena aad rabto in aad farxad ku noolaatid waxaad heshay 2 hadaf oo aad gaarto noloshaada midda koowaad waxaad go'aansatay inaad ka fogaato faqriga oo aad taajir noqoto kan labaadna waa in aad farxad ku noolaatid ha sugin in ay wax isbeddelaan
haddii aadan adiga wax beddelin beddel dhammaan waxyaabaha aanad ku faraxsanayn halka aad ka sugi lahayd inta ay duruufuhu isbeddelayaan. dadka u haysta in ay noloshooda isbeddelayso iyaga oo aan go'aansan in ay wax ka beddelaan waxay ka hor imaanayaan hadalkii Alle oo ah Allah ma beddelo dad ilaa ay iyaga naftooda beddelaan. waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u gaarto dhammaan hadafyadaada nolosha waa: midka koowaad, hadaf. marka aad samaysato hadafyo waxay noloshaada noqonaysaa mid dhadhan leh, tartan leh oo farxad leh, dhacdooyin badanna ay ka buuxaan oo ku dhiirigelisa. cilmi baaris la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka leh hadafyo isla markaas u dagaalama hadafyadooda ay ka farxad badan yihiin kuwa aan lahayn wax hadafyo ah. inaad ogaato hadafyadaada iyo waxa aad rabto noloshu waa mid aad u fudud. marka aad ogaato waxa aadan rabin nolosha ee jeclaan lahayd in aad beddesho. haddii aad tahay qof badana stress iyo warwar badan, waxaa dhab ah inaad rabto inaad ku noolaato nolol bilaa stress ah. Albert Einstein wuxuu yidhi, haddii aad doonayso in aad nolol farxad leh ku noolaato, noloshaada ku xir himilo iyo yool oo ha ku xirin shakhsiyaad iyo wax kale. noloshaada markaad macno u yeesho ayay macaan yeelataa. midka labaad, go'aan dhab ah la imow. dhammaan dadkii noloshan guul ka gaaray waxa ay ahaayeen kuwo ku adag waxa ay rabaan, kuna qanacsan fikirkooda nololeed. xasuuso dhacdadii cajiibka ahayd ee nebiga sallallahu calayhi wasallam marka lagu dhahay, iska dhaaf waxaan aad wadid, aan ku siino waxaad rabto sida madaxtinimo, xoolo, haween qurxoon. markaas ayuu ugu jawaabay, wallaahi haddii dayaxa iyo cadceedda midba gacan la ii saaro in aanan ka tegayn waxa aan ku taaganahay. midka saddexaad, rumayn. awooddaada waa waxa aad aaminsan tahay. haddii aad aaminsan tahay in aad himiladaada gaari karto, waa runtaa oo waad gaari kartaa. haddii aad aaminsan tahay in aadan gaari karin, waa runtaa oo ma gaari kartid. sababtoo ah labadaba adiga ayaa isxukmiyey. waxaad aamintaa in aad samayn karto. si aynu u guulaysano, ugu horayn waa in aynu aaminnaa in aynu guulaysan karno. midka afaraad, la imow qorshe nidaamsan oo qoran. marka aad rabtid in aad samayso hawl, waxaa muhiim ah in aad qorshaysatid sida aad u samayn lahayd iyo wakhtiga aad ku samayn lahayd hawshaada. warqad ku dulqor dhammaan qorshahaaga si nidaamsan. tusaale, haddii uu yahay waxa aad doonayso in aad 10 sano gudahood ku gaarto, qor qorshaha 10 sano ee soo socda ee aad ku gaarayso halka aad doonayso. kadibna ku xiji 5 sano ee soo socota waxa aad doonayso in aad xaqiijiso ee u adeegaya hadafkaaga guud. kadibna qor qorshahaaga sanadlaha ah. kadibna midka 6 bilood ilaa aad ka soo gaarto saacadda aad hadda joogto iyo waxa ay tahay inaad qabato ee uu kuu sii dhowaynaya hadafkaaga fog. daraasad aad u fara badan baa waxay tilmaamayaan wixii aan la qorin ee aan la qorsheen in aanan inta badan qofka u qabsoomin. haddii aad ku guuldaraysato in aad qorshe samaysato, waxaad qorshaysatay guuldaro. midka shanaad, la imow ficil. waxa keliya ee u dhaxeeya hadafkaaga iyo in ay rumowdo waa in aad ficil la timaadid. hadaf aanan ficil lahayn waa geed aanan waxba soo saarayn. marna ha sugin in ay kuu timaado guusha haddii aadan dhaqaaq la imaanin. marka aan dadaalno ayaa Ilaahay inoo fududeeyaa waxaan ku dadaalnay. midka lixaad,
adkaysi iyo sabar badan. ma jirto qof hal maalin ku gaaray nolosha uu gaaray, laakiin qof kasta wuxuu huray waqti dheer isaga oo muujiyey samir iyo dulqaad xad-dhaaf ah. guusha waxay u baahan tahay adkaysi badan. adkaysiga waa in aadan waxba u oggolaan inay kaa hor istaagaan waxaad doonayso inaad qabato marka aad bilowdo ilaa ay noqoto wax xaqiiq ah. midka toddobaad, iskaashi. dadka guulaysta waxa ay si fiican u kaashadaan oo ula tashadaan dadka ku xeeran sida xaasaskooda, saaxiibbadood iyo dadka ay hiigsanayaan. midka siddeedaad, ha ka cabsan guuldaro. guuldarrada waa casharka ugu muhiimsan ee lagu barto waddada loo maro guusha, sababtoo ah marka aad guuldaraysato waxaad baranaysaa qaladkii aad ku guuldaraysatay, kadibna qorshe cusub ayaad la imaanaysaa taas oo guul ku gaarsiinaysa. guuldarrada ayaa ku baraysa waddada aad ku guulaysan lahayd. guuldarradu ma aha in aad kuftid, balse waa in aad diidid in aad kor u kacdid. henry ford wuxuu noloshiisa ka bilaabay meel hoosaysa. in ka badan 5 mar ayuu sheegay inuu guuldaraystay. dadaal iyo isaga oo aan isdhiibin ayuu ku gaaray inuu yeesho shirkadda gawaarida ugu fiican adduunka ee Ford, soona saarta malaayiin baabuur ah sannad kasta. wuxuuna guuldarrada ka dhahay, guuldarradu waa keliyaata fursad labaad si aad mar labaad u bilowdid, balse markan xariifnimo dheeraad ah ayaa lagaa rabaa. sababta aad ugu raaxaysan weyday noloshaada waa natiijad ka dhalatay qaabka liita ee aad u isticmaalayso waxyaabaha uu Ilaahay kuugu deeqay. waan faraxsanahay. Saadi Shiiraaz oo ahaa gabayaa caan ahaa waxa uu yidhi, marnaba kama aanan murugoon nolosha iyo dhibaatooyinkeeda markii laga reebo hal maalin oo aan soconayay aniga oo kaba la'aan ah. kadibna waxa aan arkay joog kabo ah. waxaan awoodi waayay in aan iibsado. markii aan gudaha u galay masjidkii weynaa ee Kuufa, waxaan dareemay qalbi xanuun iyo murugo, waayo waxaan u ooynayay in aanan haysan kabo, balse waxa aan arkay nin aan balluga lahayn. qofka waxa uu dareemaa nimcooyinka faraha badan ee Ilaahay uu siiyey kadib markii uu waayo. tusaale, marka aad xanuunsato ayaad dareemaysaa qiimaha ay leedahay caafimaadka. inta Alle ku siiyey ku raaxayso inta aadan weynin. inta Alle ku siiyey ku raaxayso inta aadan weynin. boqolaal qof ayaa jiro waxa aad haysatid jeclaan lahaa in ay haystaan. Sheikh Ibnu Samaak ayaa mar booqday nin boqor ahaa. markii uu la kulmay boqorkii waa uu salaamay. isla xilligaana ninka boqorka ahaa waxa uu gacanta ku haystay koob biyo ah. intaa kadib ninkii boqorka ahaa waxa uu ku yidhi sheikhii, sheekhow, bal waxa aad isiisaa talo. kadibna sheikhii wuxuu ku yidhi boqorkii, ka soo qaad koobkan biyaha ah ee aad gacanta ku hayso isaga oo keliya haddii uu kuu goyn lahaa boqortooyadaada dhammaanteed iyo waxa aad hanti leedahay. kadibna waxa keliya ee aad haysato waa in aad kala doorataa in aad haraad u geeriyooto oo aad koobka biyaha ku beddelato boqortooyo, amaba in aad boqortooyadaada iska bixiso si aad naftaada u badbaadiso. haddaba labadan xaaladood keebaad adiga dooran lahayd? ninkii boqorka ahaa waxa uu ku jawaabay,
dabcan koobka biyaha ayaa ka dooran lahaa boqortooyadayda dhammaanteed. kadib sheekhii waxa uu ku yidhi boqorkii, haddaba aniga waxaan fahmi la'ahay, muxuu qofku wakhtigiisa ugu luminayaa inuu helo farxadda yar ee taajirnimada ah haddiiba hal koob oo biyo ah uu ka qiimo badan yahay hantidaasi oo dhan. ka feker waxa aad haysatid inta aadan ka fekerin waxyaabaha kaa maqan. qofka adduunka ugu hantida badan haddii la isku barbardhigo hantidiisa iyo caafimaadkiisa, waxa uu dooran lahaa caafimaadkiisa. waxa uu dooran lahaa si uu u noolaado inuu ku bixiyo hantidiisa uu noloshiisa oo dhan u tabciyey. balse waxa muhiim ah in aad ogaato caafimaadku in aan lagu iibsan karin maal adduun, balse waa wax uu bixiyo allaah. dad ayaa diyaar u ah in ay $1 milyan u bixiyaan si ay u helaan isha aad ku aqrinaysid qoraalkan. haddii aad haysatid caafimaad, waxaad ka nasiib badan tahay in ka badan 1 milyan qof oo aanan hal isbuuc in ka badan noolaa karin xanuun daraaddiis. haddaba ha ku dhuminin wakhtigaaga tirinta dhibaatada. yaysan kuu muuqan keliya waxyaabaha aadan haysan. xasuuso oo ku mahadceli nimcooyinka alle ku siiyey. dadka faraxsan ma haystaan wax walba, laakiin waxay ku qanacsan yihiin oo raali ku yihiin wax walba oo ay haystaan. qanaacadu waa in uu qofka ku raali noqdo wixii Ilaahay siiyey: qurux, carruur, guri, lacag, shaqo iyo wixii la mid ah. qanaacadu waa raaxada nafta, waa cizo iyo sharaf. qofka marna kuma raaxaysan karo noloshiisa haddii uusan raali ku ahayn waxa alle uu siiyey. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, waxaa liibaanay qof islaamay oo in ku filan oo aan ka yarayn kana badnayn lagu irsaaqay, wuxuu Ilaahay siiyeyna ku qancay. wuu liibaanay buu nebiga sallallahu calayhi wasallam leeyahay qofkii ku qanca, raali ku noqda inta alla siiyey. mu'minka dhabta ahna waa kan rumaysan in wixii Ilaahay uu u qoray aysan cid kala qaadanaynin, isla markaasna uu Ilaahay xikmaddiisa ugu qaybiyo si cadaalad ku jirto. ku raaxaysiga nolosha kuma yimaadaan lacag badan aad aruursato iyo meel gaar ah aad ku noolaato. hab nololeed sare ayaad ku yeelan kartaa waxa aad haysato iyo halka aad joogto. xadiis kale wuxuu nebiga sallallahu calayhi wasallam leeyahay, wuxuu Ilaahay ku siiyo ku raali noqo, dadka adaa ugu hoodansanaanaya. dad badan ayaa jira haysta lacag aad u badan, haddana aan faraxsanayn sababtoo ah kuma qanacsano inta ay haystaan. in yar oo alle ku siiyey ayaad ku raaxaysan kartaa noloshaada haddii aad ku raali noqotid. muslimiintii adduunka macallimiinta u noqday dhan walba. qaar ayaan cuntada maalintaa heli jirin, qaar ayaa hal dhar lahaa, qaar ayaan guri lahayn, haddana cilmi adduunka ka tegay. waxayna dhihi jireen, haddii raaxada iyo farxadda aan haysano ay ogaan lahaayeen boqorrada ugu awoodda badan dunida, waxay isku dayi lahaayeen xoog iyo awood in ay igaga qaataan. waa maxay waxa ay ku raaxaysan jireen iyaga oo aan haysan guri iyo lacag? waxay ku raaxaysan jireen oo raali ku ahaayeen qadarta alle. inta alle siiyey ayay raali ku noqdeen, kadibna alle wuxuu siiyey raaxo laga dareemo dhanka qalbiga. miyaadan aqrinaynin xadiiska nebiga sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay, waxaa la yaab ah arrinka qofka mu'minka ah, arrimihiisa oo dhan waa khayr. waxay gooni u tahay ruuxa mu'minka oo keliya. haddii uu la kulmo wax wanaagsan wuu farxaa oo wuu ku mahadnaqaa. haddii dhibaato ku dhacdana wuu ku sabraa, waxayna u noqotaa khayr. noloshana kuma siinayso wax walba oo aad jeceshahay, laakiin qanaacada ayaa kaa dhigaysa in aad jeclaatid ku faraxdid wax walba aad haysatid.
sida aan ognahay bini'aadamka wuxuu mar walba u arkaa farxaddu in ay ku jirto waxa uusan haysan. marka uu helana meel ka sii saraysa ayuu sii raadiyaa, weligiisana raaxada nolosha ma helayo. sida uu inoo sheegay nebiga sala allahu calayhi wasallam mar uu ka hadlayay qanaacada dadka wuxuu yidhi, haddii bini'aadamka la siin lahaa 2 waadi ama tog oo dahab ah, wuxuu raadin lahaa mid saddexaad. bini'aadamkana afkiisa waxaa buuxiya ciidda oo keliya. taas waxay ku tusinaysaa in qofka aysan marnaba dhammaanayn doonistiisa iyo rabitaankiisa ilaa geerida ku timaado. tusaale ahaan, haddii aad ku shaqayso $200 waxaad raadinaysaa in lagaaga dhigo $300 ah. marna kuma raaxaysanaysid 200 aad ku shaqayso, sababtoo ah mar walba waxaad ka fakaraysaa waxyaabaha kaa maqan, marna kama fakarayso inta aad haysatid. waxaad u arkaysaa in haddaad heshid $300 ah bishii farxaddaada ay siyaadayso, laakiin marka aad 300 heshidna 400 ayaad sii rabtaa. waxba kama qaldana qofka inuu ku riyoodo nolol sare oo raaxo badan. waxa u baahan in la iska ilaaliyo waa in aysan waxyaabahaas noqon dhuuninimo, isla markaasna qofka dhaxal siinaysa mararka qaar in uu geysto dil, ama inta qofka wuxuu haysto laga soo qaado uu isagu isla jeclaado in uu helo. tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano qiso kitaabta adabta qaybtood qoraan oo ahayd 3 nin ayaa isa soo raacay, iyaga oo waddadii socda ayaa waxay heleen kanzi ama xoolo aad u badan. kadibna waxay dhaheen aan qaybsano si isku mid ah. kadibna iyaga oo waddadii haya ayay gaajoodeen. kadibna mid ayay ku dhaheen, raashiin magaaladii inoogu doon, cidna ha u sheegin. arrinka ka qari yaan layna arag si aan la inoo damcin. markii uu tegey ayuu damac galay oo uu yidhi, si aad adiga xoolaha keligaa u qaadato raashiinka sun ugu dar. iyaga ha cunaan, kadibna saas ha ku dhintaan, raashiinkuna adiga keligaa ha kuu soo haro. raashiinkii buu sun ka soo buuxiyey, kadibna soo qaaday. intii uu maqnaa ayay labadii kalena waxay yidhaahdeen, ninkan inaga maqan aan ka takhallusno, labadeenna ha inoo soo haraan xoolaha. sidaas ayay ku heshiiyeen. ninkii markii uu yimaadayna way dileen, ilaan waa niman horay ugu tashaday. kadibna waxay dhaheen, aan nasanno, raashiinkii bay cuneen, iyagiina way ku dhinteen. waxa arrinta halkaas gaarsiiyey waa damac iyo xasad. qanaacadu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ka mid ah inuu ahaado qofka mid mar walba u mahadnaqa Ilaahay fadliga uu ugu deeqay. haddii ay tahay caafimaad, carruur, maal, qurux iyo wixii la mid ah. qanaacadu waxay sabab u tahay in lagu barakeeyo wixii Ilaahay ku siiyey, isla markaasna qanaacadu waxay leedahay raaxo nafsiyan ah. Ilaahay ayaa bixiya qanaacada, innaguna waa inaan ku dadaalno sidii aan u noqon lahayn dad ku raali ah nimcooyinka tiraha badan ee Ilaahay ina siiyey, oo ay ugu horayso islaamnimada, caafimaadka, dhammaystirka 6 lixaad, caqliga, aqoonta iyo kuwo kale oo badan. sida uu Ilaahay qur'aanka inoogu sheegay, haddii la damco in la tiriyo nimcooyinka Ilaahay inaan la tirin karin, Ilaahay ha inaga dhigo kuwa raali ku ah inta uu siiyey. aamiin. noloshu waxay i bartay in qanaacadu tahay xaalad lagu noqdo in lagu helo nolol dhammaystiran oo farxad wadata. sidoo kale in ay tahay meesha ugu dambaysa ee uu qofka ku kasbado kalsooni iyo isku filnaansho buuxda. fikirka wanaagsan dhinaca aad ka fiirsid ayay maskaxdaada oggolaanaysaa. wax wanaagsan ayaa noqon kara wax xun haddii aad ka eegto dhinaca mugdiga ah. wax xun ayaa noqon kara wax fiican haddii aad ka eegto dhinaca iftiinka ah. mar walba ka fiiri xaalad walba dhanka wanaagsan.
maskaxdaada waxa aad ka dhaadhicisid ayay oggolaanaysaa. haddii aad arrin walba ka fiirisid dhanka wanaagsan, maskaxdaada waxay oggolaanaysaa in ay arrintaas tahay wanaag. ama haddii aad ka fiirisid dhanka xun, waxay u malaynaysaa in uu arrintaas wanaagsanayn. tusaale, haddii aad wadato Mercedes ama gaari raqiis ah, waddadu waa isku mid. haddii aad diyaaradda ku safarto economic class ama business class, halka aad u socoto isma beddelayso. haddii aad ku seexato sariir qaali ah ama dhulka aad seexato, hurdo waa hurdo. waxa keliya kala duwan waa dhinaca mid walba aad ka fiirinayso. mid inta ugu yar ee uu haysto ayuu ku raaxaysanayaa, midna isaga oo wax walba haysta ayaanu ku raaxaysanayn, sababtoo ah wax ka sii badan ayuu rabaa. u fakar si wanaagsan, wax kasta ka fiiri dhanka wanaagsan, mar kastana filo khayr iyo wanaag waad heli doontaa, sababtoo ah Ilaahay wuxuu leeyahay, addoonkayga khayr iyo wanaag hadba kuu iga fishuu iga helaa nimcada alle. haddii aad adigu caafimaad haysato, waxaa jiro malaayiin xanuuno qaba. haddii aad adigu miyir qabto oo aadan waalnayn, waxaa jiro kumanaan kun waalwaalan oo xirxiran. haddii aad aqrin karto qoraalkan, waxaa jira malaayiin aan indho lahayn, iyo kuwa aan wax akhriska aqoon, iyo kuwa aan iftiin koronto haysan oo mugdiga ku nool. haddii aad haysato maqal, waxaa jira malaayiin aan waxna maqlin, jecel maalin in ay wax maqlaan. haddii aad adiga xoolo haysato, waxaa jira kuwa maalin walba baahi u dhinta. haddii carruur Ilaahay ku siiyey, waxaa jira kuwa aan waxbana dhalin, maalin walba ku ducaysta in ay ilmo dhalaan. haddii aad adiga tahay qof muslin ah, waxaa dunida ku nool boqolaal aan muslin ahayn. ma dhahday alxamdulillaah. nimcooyinka ugu waaweyn ee Alle ina siiyey ayaa ah maskaxda, oo aanan jirin wax loo dhigo. waa mashiinka amra oo kala wada jirka la'aantiisana waxaan noqon lahayn dad waalwaalan oo aan is-xukumi karin. gacmahaaga ma ku gadan lahayd $1 milyan? lugahaaga ma ku gadan lahayd $100 milyan? qalbigaagana ma ku gadan lahayd $100 milyan? imise lacag ayaad haysataa oo aadan Alle ooga mahadcelin? lama soo koobi karo waxa uu Alle na siiyey oo nimcooyin ah. Alle waxa uu qur'aankiisa ku leeyahay, haddii aad isku daydaan in aad tirisaan nimcada Alle, ma soo koobi kartaan. waxaad qortaa nimcooyinka Alle ku siiyey ee aad ugu mahadcelinaysid. waxaa loo baahan yahay in aan mar walba ku shukrino Alle nimcada uu ina siiyey, oo aan mar walba dhahno alxamdulillaah. ilaahow adaana siiyey ee noo siyaadi. haddii aad meel ka dhiman tahay, ha isdhihin meeshaas ayaa kaa maqan, ee Alle ku shukri, soona xasuuso in dunida ay ku nool yihiin dad adiga kaa liita 1,000 jeer. ku qanacsanow oo ku farax waxa Alle uu ku siiyey. markaas ayaad noqonaysaa addoon Alle ugu mahadceliyey waxa uu siiyey. ha isbarbardhigin. ahaw qofka adiga aad tahay, faraxsanow kuna noolow noloshaada dhabta ah. waxaa jira sabab uu Ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay, kuu siiyey waxa aad haysato. naftaada ha barbardhigin naf kale, mushaharkaaga mid kale, gaarigaaga gaari kale, moobeelkaaga mid kale, gurigaaga guri kale, carruurtaada carruur kale. jooji isbarbardhiga, bilow noloshaada. waxaan hubaa markaas inaad noqonaysid qof ku raaxaysta noloshiisa uguna farxadda badan. midna ogow, waxa ugu adag adduunka waa inaad isku daydo inaad noqoto qof kale oo aadan ahayn. dadka qaar ayaa u dhimanaya inay dhuubtaan si ay ugu ekaadaan kuwa moodeelka ah.
qaar kale ayaa jecel in ay miisaan u kordho oo buurtaan. dad badan ma garanayaan waxa ay samaynayaan, keliya waxay arkeen cid kale oo samaynaysa. waxaa la joogaa wakhtigii aad joojin lahayd arrinta, kuna farxi lahayd sida aad tahay iyo waxa aad haysato. isbarbardhigid waa cudur, waxay waxyeelaysaa xiriirka kaala dhexeeya naftaada, kan dadka kale iyo midka ugu muhiimsan xiriirka Ilaahay. waxay kaa dhigaysaa mid aan ku mahadcelin nimcada Ilaahay ku siiyey. ii aamin, waxa ugu fudud adduunka aad samayn karto waa inaad qofkaad tahay ahaatid. faraxsanow kuna noolow noloshaada dhabta ah. waxaa jira sabab uu Ilaahay kaaga dhigay sida aad tahay, kuu siiyey waxa aad haysato. raaligelinta dadka waa arrin aan la gaari karin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa suuqa aaday wiil aabbihiis iyo dameer ay rabeen inay suuqa u iibgeeyaan. iyaga oo lugaynaya ayaa waxaa ka hor imaaday 2 qof. maxaad u lugaynaysaan idinka oo dameer wata? maad raacdiin? sidaas ayay ku dhaheen. duqi ayaa wiilkiisa ku yidhi, bal adigu fariiso oo dameerka wad aabbo. cabbaar markii ay socdeen kadib ayay waxay arkeen haweenay ku calaacalaysa. ceeb badanaa wiilku, isagu ayaa dameerka wadaya, aabbihii wuu lugaynayaa. sidaa darteed wiilka dameerkii ayuu ka degay, duqii ayaana raacay dameerkii. mar kale ayay waddada qof ku arkeen. miskiin, waa maxay duqa aan naxariista lahayn? wiilkiisa ayaa lugaynaya, isagana dameerka ayuu wadaa. qof ayaa sidaa ku yidhi. markaana labadood ayaa raacay dameerkii. qof kale ayay waddada dhexdooda ku arkeen. xaasidsana, waxay rabaan inay dameerka maskiinka ah dilaan. sidaa ayuu qofka kalena ku yidhi. markay hadalkaa maqleen ayay labadoodiiba dameerkii ka degeen, waxayna go'aansadeen in ay labadooda lugeeyaan iyaga oo dameerkii wada. suuqi markii ay soo galeen ayaa dadkii oo dhan la yaabeen oo ay ku sheekaysanayeen. dameer bay wadaan, labadoodna midna ma fuulin. bal fiiri aabbaha iyo wiilkiisa sida ay dadku mar walba ugu hadli jireen. haddaba waa in aad ku dhaqaaqdo oo aad samayso waxa aad rabto, dani kuugu jirto waafaqsanna diinta, adiga oo aan cid kale ku raaligelin. dadka oo dhan ma qancin kartid, xitaa haddii aad tahay midka ugu wanaagsan, sababtoo ah dadka maanta adduunka joogo markii aad isdhahdid caawi, waxay u qaadanayaan in aad istustus iyo ha lagaa sheego ka wado. markii aad rabto in aad keligaaga ahaato, waxay u qaadanayaan in murugo ku hayso. markii aad ku wanaag u samayso, way iska indhatirayaan. laakiin markii aad hal qalad samayso, waxay wadayaan intaas sano. markii aad hadal dabacsan ku hadasho, waxay u qaadanayaan in aad tahay daciif. markii aad bilowdo in aad dantaada garato, waxay u qaadanayaan in aad dadka ka go'day oo buufis kuugu dhacay. dadka mar walba way hadlayaan, marna ma raaligelin kartid. si kasta oo ay tahay, si kasta oo ay kuu xukmiyaan, wax kasta oo ay u qaataan, adiga ha joojin ee joogtay wanaag samaynta iyo in aad u dhoola caddayso, salaanto, xushmayso, u naxariisato, soo dhowayso, cafiso, caawiso. hadallada dadka allah wuxuu leeyahay yaysan ku walbahaargelinin hadalkoodu, sababtoo ah dadku way hadlayaan, waxayna ka hadlayaan wax quseeya iyo wax aan qusaynba. dadka hadalkooda waxaa ka mid ah hadal wanaagsan oo dhiirigelin leh iyo mid aan wanaagsanayn oo abuuri kara dhibaatooyin. qofka guuldaraystay waa qofka isku dhiiba hadalka dadka ee aan awoodin in uu difaaca naftiisa. waa in aad samaysaa waxyaabaha adiga aad ku raaxaysanaysid ama ku farxad geliya, aanan muhiimad weyn siinin dadka hadalkooda iyo waxa ay samaynayaan. marka ay bilaabaan in ay wax kaa sheegaan oo aan wanaagsanayn, ka fogow meeshaas, iskana ilow hadalkooda. waxaadna ogaataa qof waliba oo bulshada ka mid ah waxa uu leeyahay habfikir u gaar ah. hadalka alle aan ku dadaalno, isagaa inoo daawo ah. aanna ka fogaano hadalka dadka.
marnaba ha u oggolaanin in qof ku liido ama ku dareensiiyo in aadan qiimo lahayn. alle wuxuu kuu abuuray ujeeddo cad, alle ayaana ku karaameeyey. imaamu shaafici ayaa yidhi, qof allaala qofkii u maleeya in uu ka badbaadayo hadalka bini'aadamka wuu waalan yahay. alle ayay wax ka sheegeen, nebi moxamed ayay wax ka sheegeen oo ay yidhaahdeen waa saaxirow, wuu waalan yahay. maxaad u malaynaysaa wixii ka soo haray labadooda? dadka hadalkooda waa sida dhagxaanta, ama dhabarka ayaad ku qaadaysaa oo waad ku jabaysaa, ama lugahaaga hoostooda ayaad kaga dhisanaysaa dabaq abraaj sare kuu qaadaya, waadna guulaysanaysaa. ma joojin kartid hadallada dadka, laakiin ha u oggolaan hadallada dadka inay adiga ku joojiyaan. raaxada qalbiga. waan ku jecelahay. markii aad dhahdo waan ku jecelahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qofka kale qalbigiisa. waa in aad muujisaa ficil si aad u caddayso. jacaylku ma ahan oo keliya hadallo la dhaho, laakiin waa ficil wanaagsan. jacaylku ma aha dareen keliya, jacaylku waa daryeel. jacaylku waa dareenku baraya farxadda, islamarkaana muujinaya dabeecadahaaga kuwooda ugu wanaagsan, kuna tusinaya macaanka noloshaada. jacaylku wuxuu xambaarsan yahay naxariis, wuxuuna keenaa isku dhowaansho iyo kalsooni. sooma arag mar kasta aad fiirisid qofka aad jeceshahay, wejigaaga waxa ka muuqda farxad iyo dhoolacadayn. jacaylka wuxuu macno iyo qiimo u yeelaa noloshaada. haddii uusan jiri lahayn jacayl, noloshu waxay noqon lahayd mugdi, laakiin jacaylka ayaa ah waxa iftiiminaya noloshiina. in aad ku noolaato jacayl waa arrin ku dhisan diinteenna. waxaad arkaysaa in badan ay diinteenna nagu amartay in aan waalidiinteenna, qaraabada, xaaska, carruurta, deriska iyo dhammaan dadka noogu dhow jeclaano. waana sababaha ugu weyn aan ku galayno jannada, in aan isjeclaano oo jacaylka uu noqdo mid dhexdeenna ku faafisan. nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirto, jannadu ma galaysaan ilaa aad ka rumaysaan xaqa, mana rumaynaysaan ilaa aad iska jeclaataan. ma idin tilmaamaa wax haddii aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan? salaanta dhexdiina ku faafiya. jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto, waxa ugu adag ee la kasbado, iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo. calaamadaha lagu garto qofka sida dhabta ah kuu jecel. qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kuu dhoweynayaa allah, wuxuu ku leeyahay kaalay aan qur'aanka wada akhrisana, wuxuu kuugu dhiirigelinayaa sida aad aakhira ugu shaqaysan lahayd. gacantaada ayuu qabanayaa, wuxuu ku leeyahay kaalay aan salaada tukano. qofka sida dhabta kuu jecel aamusitaankaaga ayuu fahmayaa inta aadan hadlin ka hor. boqolaal sheeko ayuu kaaga sheekeynayaa si uu kula sheekaysto. wuxuu xiisaynayaa codkaaga, kaftankaaga, qosolkaaga, sheekadaada, wuxuuna kula fadhiyayaa saacadooyin isaga oo u maleeya daqiiqado. qofka sida dhabta ah kuu jecel, farxaddaada waa farxaddiisa. marka aad faraxsan tahay ayuu u malaynayaa adduunka oo dhan oo faraxsan. murugtaada waa murugtiisa, dhibaatadaada waa dhibaatadiisa. qofka sida dhabta ah kuu jecel si sahlan ku kala tegi maysaan. haddii ay jirto boqolaal sababood aad ku kala tegi kartaan, wuxuu raadinayaa hal sabab oo aad ku wada joogi kartaan. ilintaada wuxuu u malaynayaa ilintiisa. marka aad oysid ayuu u malaynayaa in adduunka oo dhan ay oynayaan. qofka sida dhabta ah kuu jecel wanaaggaaga ayuu arkayaa marka aad xanaaqsan tahay. qofka sida dhabta ah kuu jecel haddii aad waddan ka tagto oo aad safarto, waxa uu arkayaa in waddanka oo dhan ay safreen, dadka oo dhan uma jeedo ilaa adiga. qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu kaa fakerayaa adiga oo aan ogayn. jacaylkiina ayaa wax walba ka sareeya, wax walba adiga ayuu kaa horumarinayaa. qofka sida dhabta ah kuu jecel waxa uu ku siinayaa kalsooni marka dadka oo dhan ay kaa tagaan, ayaa isaga kula joogo. xaalad walba oo aad ku jirtid ayuu kuugu jecel yahay. sharaftaada ayuu ilaalinayaa, danahaaga ayuu ka fakerayaa. waxaa ka mid ah calaamooyinka alle inuu idinka abuuray naftiina haween si aad isugu xasishaan, dhexdiina yeelay jacayl iyo naxariis.
meelaha laga raadiyo xasiloonnida kalgacaylka una ah tusaale naxariista ayna ka mid tahay aayadaha alle uu ragga iyo dumarka isu yeelay lamaane isu baahan oo noloshooda midba midka kale dhammaystirayo waa guurka ku bilowda bilow wanaagsan iyo doorasho nafta raali ku noqotay alla qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay guursada wixii idin wanaagsan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay lama arag laba isjecel waxa ugu wanaag badan sida nikaaxa taas waxaan ka fahmaynaa marka guurka ay ku bilaabato raali ahaansho iyo ka helitaan in guurkaas uu noqonayo guur lagu waaro oona ku dhisan jacaylkaas oo saldhig u ah farxad sida baaritaano badan oo la sameeyey guurka ayaa lagu ogaaday in guurka uu keeno farxad doorashada lamaanaha waa doorasho kan ugu adag sidaas awgeed waxaa muhiim ah in aad si fiican oo xeel dheer ugu fekertid qofka aad noloshaada la qaybsan lahayd habdhaqankiisa shakhsiyaddiisa intaas waxay noloshaada u horseedi karaan farxad raynrayn iyo raaxo guur ka jawaab su'aalahan si aad u ogaatid gabadha ama wiilka kuugu habboon ee noloshaada su'aasha koowaad qof sidee ah ayaad rabtaa in aad guursatid tilmaam ugu yaraan 5 sifood qor dhammaan dabeecadaha aad ku dooranaysid waa maxay waxyaabaha muhiimka kuu ah ee aad ku dooranaysid sida diinta da'da lacagta aqoonta quruxda sharafta iyo wixii la mid ah waa maxay waxyaabaha aad ka sugayso qofka aad nolosha la wadaagaysid wiil ayaa hooyadiis weydiiyey sideen u heli karaa gabar igu habboon hooyadii ayaa ugu jawaabtay ha ka welwelin helidda gabar wanaagsan xoogga saar sidii aad u noqon lahayd nin wanaagsan sababtoo ah alla wuxuu leeyahay kuwa wanaagsanna waxay u sugnaadeen kuwa wanaagsan oo macnaheedu ay tahay haddii aad adiga wanaagsanaatid in aad helaysid qof wanaagsan sifooyinka lagu doorto ragga iyo dumarka waxaa saldhig u ah 2 sifo diin iyo dabeecad sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri xadiis saxiix ah haddii uu idin yimaado qof aad diintiisa iyo dabeecadiisa raali ku tihiin u guuriya haddii kale xumaan iyo dhibaato weyn baa dhulka ahaanaya xadiiskan waxaad ka fahmi kartaa in diinta iyo qofka dabeecadiisa aan isku xirnayn maxaa yeelay si kasta oo qofku uu diinta u yaqaan wuxuu noqon karaa qof dabeecad qalafsan taas awgeed diinta qofka wanaagga ayay baraysaa dabeecadduna qofka dhaqankiisa ayay wanaajinaysaa hadda ka hor ayaa ninbaa nin kale weydiiyey gabar ayaan dhalay yaan u guuriya markaas ayuu ugu jawaabay u guuri mid diin leh ilaahayna ka cabsanaya sababtoo ah haddii uu jeclaadana wuu sharfayaa haddii uu xanaaqana kuma xadgudbayo haddii aad isweydiinaysid qurux looma guursado miyaa waxaan ku leeyahay qof kaste oo inaga mid ah quruxda wuu jecel yahay laakiin qof kasta quruxdu si ayuu u arkaa way wanaagsan tahay qofka in uu guursado qof isaga la qurxoon laakiin quruxda wejiga yaysan noqon ujeeddada ugu weyn qofka aad nolosha kula wadaagayso sababtoo ah quruxda mar kasta uu qof ku timaado way sii dhammaanaysaa laakiin waxaa haraya waa qofka habdhaqankiisa uu kula dhaqmaya lamaanihiisa uu nolosha la wadaagayo ha raadin qof qurux badan laakiin raadi qof ka dhigaya noloshaada qurux talooyin muhiim u ah doorashada lamaanahaaga ha raadin qof buuxa oo ka dhammaystira meel kasta ee raadi qof aad isfahmaysaan hadafkiina noloshu ay tahay mid isku mid ah isweydii lamaanahaaga ma u qalmaa in uu noqdo hooyo ama aabbo carruurtaada mustaqbalka mana qaadi karaa mas'uuliyaddooda ogow familka uu ku soo koray lamaanahaaga sababtoo ah dhaqankiisa iyo qaabka uu u fakerayo ayay qayb ka qaadanaysaa waana la xididi doontaa guurku wuxuu sitaa barako ee ha ugu cabsan dhaqaalo awgeed alla wuxuu leeyahay haddii ay sabool yihiin alle isagaa deeqdiisa ku hodminaya kala sheekayso qofka aad rabto in aad guursato sida aad u rabto in ay noqoto noloshaada iyo qaabka aad u rabto in
aad u wada noolaataan eegmada guurka ka hor waa muhiim waxay qalbigaaga gelinaysaa qanaaco iyo danayn guurkuna wuu ku barakoobaa ha u guursan si aad dantaada u gaarto sababtoo ah guurka waxa saldhig u ah jacaylkuna ma ahan danaysi waxaad iska ilaalisaa in aad guursato qof leh laba dhaqan oo kala ah qof ka hadlaya gacmihiisa oo xanaaq badan iyo qof bakhiil ah ha ku raacin muuqaal way ku qaldi karaan ha ku raacin dhaqaale wuu dhammaan karaa dooro qof farxad kuu keeni kara sababtoo ah dhoola caddayn keli ah ayaa maalin mugdi ah ka dhigi karta iftiin kala dooro haa ama maya si aad 100% u ogaatid in qofka aad rabtid in aad guursatid uu yahay midka kuugu habboon noloshaada diyaar ma tahay haa su'aasha koowaad isku aragti ma ka haysataan guurka su'aasha labaad ma isku fahantaan si walba su'aasha saddexaad ma ka heshaa daryeel naxariis kalgacayl ama ixtiraam midka afaraad xiriirka salaada ma yahay mid toosan midka shanaad ma wanaagsan yahay xiriirka labada waalid midka lixaad ma ku kalsoon tahay midka toddobaad isku aragti ma ka haysataan xalinta haddii aad iskhilaaftaan midka siddeedaad ma jeceshahay in noloshaada inta ka dhiman aad la noolaato midda sagaalaad ma leedahay dulqaad sabar midka tobanaad sida aad u kala qaybsan lahaydeen mas'uuliyadda idin saaran ma ku heshiiseen natiijada haddii jawaabta mid ka mid ah ay noqoto maya waa in aad si fiican uga fekertaa sababtoo ah ma ahan xiriir muddo jiri doona haddaba si fiican uga feker ka wada sheekaysta su'aalahan si aad isku barataan waa kuma asxaabtaada kuugu dhow ma tahay qof bulshada caawiya qof sidee ah ayay dadka kuugu tilmaamaan in aad tahay maxay tahay dhaqamada aad jeceshahay in aad aniga igu aragto maxaa ku farxad geliya si aan u sameeyo ma jiraan dhaqamo aad adiga dhibsato maxay tahay waxa aad aniga iga sugayso sideed u ilaalisaa nadaafadaada jirka dharka guriga ma jiraan xanuuno aad ka tabanayso qaabkeed jeclaan lahayd inuu arooskeenu u dhaco meeqa carruur ayaad jeceshahay in aad dhashid sidee ayaad jeceshahay in aan ilmaheenna u tarbiyayno ma jiraan shaqo tabarruc aad dadka u qabato heerkaaga waxbarasho intee ayuu gaarsiisan yahay bilow qurux badan tusaalaha ugu quruxda badan nolosha lamaanaha soo martay waa habdhaqankii nebi sallam uu kula dhaqmay xaasaskiisa guriga nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa guri ka tarjumayo hadalka alleh uu ku amray dhammaan lamaanaha in ay iskula dhaqmaan wanaag macruuf kula noolaada wanaag macruuf kula noolaada macruuf oo micnaheedu tahay ficil wanaagsan hadal dabacsan iyo dabeecad fudud waxaana loo baahan yahay lamaanaha mid kasta in uu ogaado hadalka alleh waxay wanaag ku leeyihiin inta iyaga lagu leeyahay oo kale oo micnaheedu ay tahay in lamaanaha ay isku leeyihiin xuquuq isku mid ah loo baahan yahay mid kasta in uu ku dadaalo sida midka kale uu u wanaajin lahaa bangiga jacaylka qalbiga waxaa ku furan bangigaas oo lagu magacaabo bangiga jacaylka bangigaas hadba inta aad ku shubato ayaad ku arkaysaa haddii aad lamaanahaaga wanaag u samaysid jacaylkaagu wuu kordhayaa haddii aad wax qaldan samaysidna wuu nusqaamayaa lamaanaha waxaa loo baahan yahay in ay ku dadaalaan in ay jacaylkooda kordhiyaan si ay u dareemaan raaxada nolosha haddii aad isweyddiinaysid maxaa ka mid ah waxyaabaha kordhiya jacaylka oo aan ku gaari karo raaxada guurka waxaa ka mid ah isbarasho u baro lamaanahaaga sida aad naftaada u taqaanid oo kale waxyaalaha uu jecel yahay waxyaalaha uusan jeclayn waxyaalaha uu dhibsado xilliga uu xanaaqo iyo xilliga uu faraxsan yahay iyo wix la mid ah
waxay taasi kaa caawinaysaa inaad si fudud ku hanato qalbigiisa. ka bilow naftaada waxyaalaha aad jeceshahay in aad ku aragtid lamaanahaaga. marka hore ka bilow naftaada. cabdullaahi bni cabbaas radiyallaahu canhu wuxuu leeyahay, xaaskayga waxaan isugu qurxiyaa sida aan aniguba jeclahay inay isugu kay qurxiso. markaas qofka kale waxaad siinaysaa dareen jacayl. sheeko macaan aan wada sheekaysano, macnaheedu waxay tahay aan xiriirkeenna xoojino. nebiga sala allaahu calayhi wasallam dhaqamadiisa waxaa ka mid ahaa inuu subax kasta iyo galabaha la sheekaysan jiray xaasaskiisa. waxaad kala sheekaysan kartaa sida ka waran maalintaada, maxaad maanta samaysay iyo wix la mid ah. kadibna in aad dhegaysatid oo aad la noolaatid waxyaabaha ay kaaga sheekaynayso ama uu kaaga sheekaynayo. midka afaraad, hadiyo si lama filaan. haddii lagu siiyo wax aadan filanayn waad farxaysaa, qofka ku siiyeyna ma iloowaysid. bal ka waran haddii aad sidaas oo kale lamaanahaaga u siisid ama u samaysid wax uusan filanayn, jacaylkiisa sooma siyaadayo. raad jacayl ayay qalbiga lamaanahaaga ku reebaysaa. muhiim ma ahan in ay noqoto wax weyn, waxyaabo yaryar ayaa jira oo aad maalin walba u hadiyeyn karto. midka shanaad, ammaan. lamaanahaaga haddii aad ku ammaanto wuxuu kuu sameeyey kadibna ugu mahad celiso, ma malaysan karaysid farxadda qalbigeeda ama qalbigiisa gelayo. mar kasta farxadda dhexdiina ku badato waxaa adkaanaya xiriirkiina. qof kasta wuu garanayaa sida guri qurux badan loo dhiso, laakiin dad yar ayaa garanaya sida quruxda badan ee loogu noolaado. gurigaaga adaa mas'uulka ah, adigaana loo baahan yahay in aad ku dadaashid sida aad uga dhigi lahayd guri farxad badan. marka la abuurayo geed, mar kasta waxaa lagu waraabiyaa biyo, waana laga ilaaliyaa qashinka si geed qurux badan u soo baxo. sidaas oo kale waa in aad gurigaagana mar kasta ku dadaashid hagaajintiisa. midna ogow, qof kasta lamaanaha ka mid ah waxa ka dhacayo gaabis ama qalad. taas waa tabiici, alle ibni aadamka ku abuuray. nebi sal slam wuxuu yidhi, nin mu'min ahi ma liido naag mu'minad ah haddii uu dhaqan ku dhibsado mid kale uu ka raali noqdaa. markaasna waxaa loo baahan yahay dulqaad iyo iscafis. taasi waxaa ka dhalanaya in uu xoogaysto jacaylku. rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, mu'miniinta kan ugu iimaanka badani waa kan ugu edebta badan, waxaana idinku aqyaarsan kan xaaskiisa ugu aqyaarsan. jacayl joogto ah. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebiga sala allaahu calayhi wasallam la weyddiiyey, dadkayaad ugu jeceshahay? wuxuu ugu jawaabay, caa'isha. kadib ayaa saxaabadu waxay dhaheen, rasuulka allahow waxaan ula jeednaa ragga. kadib wuxuu dhahay, aabbaheed kama uusan xishoon jirin jacaylka uu u qabo xaaskiisa, bal wuu ku faani jiray dadka agtooda si uu u baro dadka macnaha jacaylka. mararka qaarna wuxuu dhihi jiray, waxaa la igu arsaaqay jacaylkeeda, wuxuuna ula jeeday jacaylka uu u qabo xaaskiisa khadiija. jacaylka nebiga sala allaahu calayhi wasallam ina baraya waa jacayl aan ku xirnayn dan ama qofka in aad wax ka heshid, bal waxaa dhici jiray nebiga sala allaahu calayhi wasallam marka ay geeriyootay khadiija in uu badin jiray in uu sheegsheego magaceeda, uuna ammaani jiray ilaa ay caa'isha ay ka dhahdo, kama aanan masiirin dumar sida aan ugu maseeray khadiija. sheegista badan uu sheegaya nebiga sala allaahu calayhi wasallam waxaana dhici jirtay in uu mar kasta uu u diro asxaabteeda hadiyooyin daacad uu u yahay jacaylkeeda. guri kasta oo raadinaya liibaanta guurka waa in ay bartaan kuna daydaan nebiga sala allaahu calayhi wasallam si ay u noqoto gurigooda guri farxad badan, xilli ay ku badatay bulshadeenna furniinka iyo khilaafaadka soo dhex
galo lamaanaha waxaad ka baranaysaa habdhaqanka nebiga sala allahu calayhi wasalam sida aad gurigaaga uga dhigi lahayd guri ku dhisan jacayl iyo wehel isgarab taagan, sida aad u raaligelin lahayd lamaanahaaga una dareensiin lahayd kalsooni iyo naxariis, habka aad nolosha isku wadaagi lahaydeen iyo waddada ugu fudud loo xaliyo khilaafka haddii uu yimaado. qaar ka mid ah tusaalooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ina tusinaya sida uu xaasaskiisa ula dhaqmi jiray waxaa ka mid ah: midka koowaad, wuxuu la qaadan jiray waqti gooni u ah si uu ula sheekaysto. waxay leedahay hooyadeena caaisha radiallahu canha, wuxuu ahaa rasuulka alleh haddii uu ka soo baxo salaada casir in uu u geli jiray xaasaskiisa kadibna wuu u soo dhowaan jiray. ibnu cabbaas wuxuu tilmaamay inuu nebi sal salam xilliga aroortii marka qoraxdu ay soo baxdo soo booqan jiray xaasaskiisa. ibnu xajar wuxuu leeyahay booqashada aroortii waxay ahayd salaan iyo duco, mida gelinka dambana weheltinimo iyo wada sheekaysi. midka labaad, wuu dhunkan jiray, shumin jiray xilliga guriga uu ka soo baxayo. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa marka uu guriga ka soo baxayo in uu dhunkado xaasaskiisa sida caaisha ay leedahay. sidoo kale haddii uu sooman yahay xitaa wuu dhunkan jiray, maadaama dhunkashada ay tahay waxyaabaha dareenka jacaylka kor u qaada. midka saddexaad, biyaha wuxuu ka cabi jiray meesha ay ka cabto. caaisha radiallahu canha waxay leedahay wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam in uu ka cabi jiray biyaha meesha aan anigu ka cabayay ee uu afka ii saarnaa. sidoo kale xadiis kale waxay leedahay wuxuu ka goosan jiray hilibka meesha anigu aan ka goosto. wuxuu muujin jiray jacaylka xaasaskiisa uu u qabo xitaa cuntada iyo cabitaanka. taasina waa raadka wanaagsan ee jacaylka lamaanaha aan weligiisa titirmayn. midka afaraad, wuxuu la qubaysan jiray xaasaskiisa. nebiga sala allahu calayhi wasalam noloshiisa dhinac kasta marka aad ka fiiriso waxaa ka arkaysaa jacaylka tan ugu dhammaystiran. tusaale, caaisha radiallahu canha waxay leedahay waxaan ku qubaysan jirnay aniga iyo nebi sal salam hal weel oo labadayada inoo dhexeeyey. markaas ayaan weelkii kaga hormarayay, wuxuu idhahayay aniga waaye markayga, isaga marka uu iga hormaro waxaan dhahayay waa markaygii. bal fiiri, xitaa qubayska nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa qubays laga dareemayo kalgacayl iyo xiriirka wanaagsan ee lamaanaha. midka shanaad, wuxuu u kaxayn jiray casuumadda loogu waco. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi sal salam nin deriskiisa oo si fiican u samayn jiray maraqa ayaa ugu yeeray gurigiisa. nebi sal salam wuxuu ku dhahay, caaishana ma igula jirtaa? ninkii wuxuu dhahay maya. kadib ayaa nebi sal salam ku yidhi aniguna kuma jiro, ilaa markii dambe uu ku yidhi haa. kadib ayaa nebi sal salam iyo caaisha gurigiisa ay u soo raaceen. midka lixaad, wuxuu ka masixi jiray ilinta marka ay oyso. xilli ay ku guda jireen nebi sal salam iyo xaasaskiisa safar ayaa hooyadeena safiya radiallahu canha ka xanuunsaday geelkeeda. wuxuuna ahaa geelka ay aad u jecleed, mar kastana way ku safri jirtay. kadib ayaa nebi sal salam u yimid, waxaana loo sheegay arrintii. kadib way oysay. markaas ayaa nebi sal salam gacantiisa ka masaxay ilinteeda. nebi sal salam ma uusan xaqirin dareenkeeda iyo sababta ay u oynayso. midka toddobaad, wuxuu u ahaa xaaskiisa wehel iyo saaxiib. caaisha radiallahu canha iyada oo gudanaysa waajibaadka xajka waxaa ku dhacday caado. markaas ayay aad u murugootay ilaa ay ka oyso. kadib ayaa nebi sal salam u yimid, wuxuu ku dhahay caado miyaa kuugu dhacday? kadib ayay dhahday haa. kadib ayaa nebi sal salam ku yidhi isaga oo qalbigeeda dejinaya, arrinkani waa arrin alle uu ku waajib yeelay dumarka bini'aadamka ee sameey wuxuu samayn jiray xaajiga, qofka xajka gudanaya, waxaan ka ahayn in aad ku tawaafto kacbada. bal u fiirso, nebi sal salam markii uu u yimid ma uusan weydiin maxaa kugu dhacay, balse wuxuu ku dhahay caado miyaa kugu dhacday? wuxuu ahaa mid la socda xaaladaha xaaskiisa. intaas kadib niyaddeeda ayuu dejiyey, murugtiina wuu ka saaray.
midka sideedaad wuxuu qayb ka qaadan jiray hawsha guriga. caaisha radiyallaahu canha ayaa waxaa la weydiiyey nebi sal sallam muxuu ka samayn jiray gurigiisa. waxay ku jawaabtay wuxuu ahaa qof u taagan shaqada reerkiisa. axaadiista kale waxay tilmaameen in uu ahaan jiray nebi sal sallam mid dharkiisa hagaajista, kabihiisa nadiifista, arigiisa caanaha ka lisa, ehelkiisa danahooda u taagan. nebi sal sallam oo ah hogaamiyaha ummadda, xilliga uu joogo gurigiisa wuxuu u taagnaa shaqada gurigiisa. xilliga uu joogo meel ka baxsan gurigiisa wuxuu ahaa mid u taagan shaqada iyo danaha dadka. miyaysan mudnayn inaguna in aan ku dayano rasuulkeena si aan u helno liibaanta qoyska? midka sagaalaad orodka ayuu la tartami jiray. wuxuu ahaa nebi sal sallam mid la ciyaara xaasaskiisa, mararka qaarna wuxuu la geli jiray tartan orod ah, sida caaisha ay inoogu sheekaysay tartan orod dhex maray iyada iyo nebiga sala allahu calayhi wasallam. waxa ay leedahay waxaan ahayn aniga iyo nebiga safar, waxa uu iga codsaday in aan orod ku tartanno. waan tartannay waana ka guulaystay. muddo kadib ayaa nebi sal sallam haddana mar kale iga codsaday in aan tartanno, kadibna wuu iga guulaystay. markaas buu inta uu qoslay yiri, tani tii hore u qaado, isaga oo ula jeedo tartankeena hadda waa bareejo. kala soco barnaamijyo xiiso badan janaalka Inspire Somali. mahadsanid.